Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxay iibisay alaabtii iyo maacuuntii guriga taallay si ay ninkeeda faqiirka ah u caawiso. Asiguna wuxuu u ballan qaaday in uu maalin ku dari doono liiska haweenka taajiriinta ah ee dunida ku nool. Laakiin ayada ayaa ku dhahday ninkeeda, aniga yoolkayda waa in aan ku arkaa adigoo guulaystay isla markaana faraxsan oo dhinacayda taagan. Haddaba ninkani markii uu ka mid noqday liiska ragga ugu hodansan dadka dunida ku nool ayuu xaaskiisa u sameeyey waxyaabo qariib ah oo dadweynihii ka yaabiyey. Waxay ahayd haweeneydani lagu magacaabo Maria, qof ka soo jeeday qoys faqiir ah oo ka soo haajiray dalka Macedonia ama Macedonia ee dhaca koonfurta bari ee qaaradda Yurub, una soo socdaalay dalweynaha Mareykanka. Markii ay timid dalka Mareykanka, waxay ku biirtay isla markaana wax ka baratay mid ka mid ah jaamacadaha dalka. Kolkii ay ka qalin jibisay oo gacanta ku dhigtay shahaado baaj ah, isla markaana u jihaysatay goobaha shaqada, ayaa waxaa u timid fariin degdeg ah, taas oo ahayd in qoyska go'aan buux ku gaareen in loo guuriyo wiil aysan garanaynin, laakiin ay isku waddan ka soo wada haajireen oo lagu magacaabo Mike. Maria fariintani kuma farxin, aad ay ugu naxday. Waxay nafteeda ku dhahday, sidee nolosha ula wadaagayaa nin aan garanaynin, dhan kalena aan weligay jacayl la wadaagin. Waxay intaasi ku sii dartay in waalidkeed ku tuureen god madow oo mugdi ah. Laakiin waxay Maria iska guursatay ninkii ay reerkeed u dooreen, waxayna guri gashay ayadoo aad u walwalsan oo cabsi weyn ka qabta mustaqbalkeeda. Haddaba Mike ayaa ahaa wiil ciyaaraha aad u jecel, kana soo jeeday qoys noloshooda dhexdhexaad tahay. Markii waalidiintiisa ku dhaheen, waxaan kuu guurinaynaa gabar aan isku waddan ka soo jeedno, asigu ma farxin, mana murugoonin. Sidoo kalena mustaqbalkiisa kama walwalin, waayo wuxuu ahaa nin naftiisa ku kalsoon, isla markaana aaminsan in uu qaadi karo mas'uuliyadda reerka cusub. Wuxuu ahaa wiil dadaal badan oo aad u jecel in uu muruqiisa maalo. Xilligii uu aqal galayay, waxay ahayd shaqadiisa adeega geegeeya badeecooyinka la iibsaday guryaha iyo goobaha kala duwan. Wuxuu shaqadaani ka helayay mushaar macquul ah, laakiin sidaas ay tahay, haddana wuxuu mar walba niyadda ku hayay in uu abuurto mashruuc ganacsi oo asiga gaar u ah. Dhanka kale, xaaskiisa cusub kuma qanacsaneen shaqada uu ninkeeda hayo. Waxay nafteeda ku dhahaysay, amaad nolosha ninkani ku fashilantaa. Laakiin waxay wax walba oo ay Maria ninkeeda ka aaminsaneed isbedeleen kadib markii ay ninkeeda ku aragtay dadaal iyo halgan joogto ah oo dhanka ganacsiga ah. Waayo waxay Maria aragtay nin fakaraya, soo jeeda, doonayana inuu shaqaalnimadani ka baxo, isla markaana jecel inuu abuurto mashruuc ganacsi oo macaash leh. Intaani wixii ka dambeeyey, Maria ninkeeda way jeclaatay, waxayna meeshii ka saartay shakigii ay ka qabtay, waxayna shakigaasi ku beddeshay kalsooni iyo dhiirigelin joogto ah. Dhowr sano kadib, qoyska Mike waxay noqdeen reer ka kooban 3 cunug iyo labadooda waalid. Waa qoys qurux badan. Hadda ayuu Mike waagii si dhab ah ugu baryay, oo wuxuu dareemay in qoyskiisa aysan anfacaynin shaqooyinkani yaryar ee uu hadda hayo. Badiil waa in uu la imaadaa, sidaana wax ka beddelaa, waayo qoyska waa ballaartay. Waxayna u baahan yihiin waxbarasho, dhar ay xirtaan, caafimaad iyo waxyaabo badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. Sidaas daraaddeed, wuxuu Mike ula tagay xaaskiisa qorshe ganacsi oo leh mustaqbal wanaagsan. Ayaduna way soo dhaweysay mashruuca cusub ee Mike, waxayna bannaanka soo dhigtay wixii kayd lacageed ah oo ay haysay. Waxayna ninkeeda ku dhahday, lacagtaani ku maalgeli mashruuca cusub, horeyna u soco. Haddaba Mike ayaa iibsaday maqaayad yar oo biisaha lagu dubo, wuxuuna bilaabay gudagelidda ganacsigiisa cusub. Kolkii hore Mike uu awoodi waayey in uu qaato shaqaale, waayo ma uusan haysanin lacag uu ku maareeyo, isla markaana mushaar ugu dhigo shaqaalaha. Sidaas daraaddeed, wuxuu xaaskiisa ka codsaday in ay kala shaqayso maqaayadda. Dalabkani Maria wuu ku adkaa runtii, waayo waa hooyo 3 carruur ah haysato oo guri shaqo badan joogto. Laakiin sidaas ay tahay, haddana
waxay Maria go'aansatay in ay caawiso ninkeeda oo garabkiisa istaagto iskuna wado shaqada guriga iyo midda maqaayadda. Subaxii inta ay goor hore toosto ayay carruurta diyaarisaa, kadibna geysaa iskuulkii ay wax ka baranayeen, kadibna aadaa maqaayadda. waxayna hore ka gashaa howlihii maqaayadda sida karinta biizaha iyo u adeegida macaamiisha. galabkii ayay gurigii ay saaki ka tagtay ku soo laabataa, waxayna guda gashaa hagaajinta iyo cunto u karinta carruurtii saaki aaday iskuulka. hawsha guriga ayay in muddo ah ku sii jirtaa ilaa ay carruurta ka seexdaan. xaaladdan adag ayay Maria kula shaqaynaysay ninkeeda Mike, waxayna aaminsaneed in uu Mike mar uun guulaysan doono, isla markaana ka mid noqon doono taajiriinta Ameerika. in muddo ah marka ay shaqaynayeen labadooda ayaa waxay galeen dayn tiro badan, taas oo keentay in uu Mike ku soo laabto alaabtii guriga oo wuxuu iska iibiyey fadhigii guriga si uu u deyn baxo. haddaba ninkii fadhiga ka gatay Mike ayaa guriga albaabkiisa soo gargaraacay. markii ay Maria ka furtay wuxuu ku dhahay, igu soo wareeji fadhiga guriga, waayo waan iibsaday. Mike ayaa marka uu tago guriga filayay in uu Maria kala kulmi doono cara daran, waayo wuxuu guriga ka iibsaday fadhigii, umana sheegin Maria in uu rabo in uu gado fadhiga guriga si ay u deyn baxaan. laakiin ma dhicin sida uu filayay, oo waxaa habeenkaasi markii uu guriga u soo hoyday albaabka ka furay xaaskiisa Maria. dhankan kalena wax xanaaq ah wejigeeda kama muuqan, mana dhihin maxaad nooga iibisay fadhigii guriga. Mike ayaa marka uu arkay xaaladda xaaskiisa ku dhahay, Maria waxaan kuu ballanqaadayaa in aan maalin un riyadaada ku rumayn doono oo aan guul ku gaarsiin doono. haddaba maalmihii xigay ayaamahaasi ayay Maria iyo Mike la imaadeen oo ay hindiseen qorshe cajiib ah oo ay ku soo jiidanayaan macaamiil cusub, kaa oo ahaa samaynta biizo weyn oo aad u mac, laakiin qiimihiisa ka hooseeyo midka ay iibiyaan maqaayadaha kale ee kariya cuntada fudud ee tartanka adagna kula jira maqaayadani Little Caesar. maalmihii hore qorshahani maqaayadda waa ku khasaartay, laakiin bilo kadib waxay heshay shacbiyad iyo macaamiil tiro badan, taas oo markii dambe Mike u suuro gelisay in uu helo faa'iido iyo macaash mug leh. Mike ayaa markii uu xoogaa guul ah ka gaaray maqaayaddiisa bilaabay inuu faracyo kale ka furo magaalooyinka deriska la ah magaaladiisa, isla markaana ka takhaluso maqaayadaha kale ee tartanka adag kula jira. wuxuu sameeyey si uu u adkaado maqaayadaha kale 2 xabbo oo biisa ah oo macaamiish kaga gadayo qiimihii halka biise, taas oo yaab iyo amakaa ku riday tartamayaashii kale, kuna qasabtay in ay Mike isaga haraan. sanado kadib Mike iyo xaaskiisa Maria waxaa u suura gashay inay gudaha dalka Mareykanka iyo Kanada ku yeeshaan 1000 farac. kadib markii ay lamaanahani noqdeen taajiriin haysta xoolo badan, waxay bilaabeen in ay u soo jeestaan u samafalidda dadka saboolka ah ee ku nool gudaha Mareykanka iyo guud ahaan dunida. waxayna ku bilaabeen mashruucooda samafalka qaybinta biizo ayagoo dadka fuqarada ah ku siinaya lacag la'aan. sidoo kale waxay lacag malaayiin dollar ah siiyeen arday badan oo fuqara ah oo wax ka barta jaamacadaha dunida. waxay kaloo bixiyeen lacaga badan oo samafal ah. haddaba Mike ayay geeridii u timid, wuxuuna geeriyooday sanadkii 2017, waxaana sabab u ah dhimashadiisa dhibaato ka qabsatay dhanka neefsiga. markii uu geeriyooday Mike, waxaa mas'uuliyaddii iyo maamulkii maqaayadda la wareegay Maria, taas oo awood u yeelatay in ay ilaaliso guulihii horay maqaayadda u gaartay, isla markaana halkaani ka sii wado horumarinta maqaayadda. haddaba Maria ayaa gudaha dalka Mareykanka looga aqoonsaday haweeneyda ugu fiican haweenka ganacsada ee dalka Mareykanka, waxayna hadda hantideeda kor u dhaafaysaa $5 bilyan. sidoo kale faracyada maqaayaddani Little Caesar ayaa kor u dhaafaya kumanaan kuwa oo ku kala yaala dunida daafaheeda. inkastoo Maria hadda kor u dhaaftay 8 sano jir, haddana kama fariisan shaqada oo ayada ayaa weli ah maamulaha maqaayadda.